habeen madow oo ay dabaylo xooggan dhacayeen, Axmed wuxuu dhex fadhiyey qolkiisa isagoo dareemayay culays weyn oo maskaxda iyo wadnaha ka haystay. Ganacsigiisii wuu fashilmay, deymo badanna waa lagu lahaa, albaab kasta oo uu garaacana wuu ka xirmayay. Isagoo quus qarka u saaran ayuu xasuustay hadal uu aabihiis mar walba dhihi jiray: markuu adduunku kugu soo yaraado, ku dheganow xawqalada. Axmed wuxuu bilaabay inuu si degan u dhaho: laa xawla walaa quwwata illa billah, ma jirto xeelad iyo awood midna oo aan ilaah ahayn. Mid, labo, saddex wuu sii waday isagoo niyada gudaheeda ka dareemaya inuu awooddiisa oo dhan u dhiibay midka caalamka maamula. Waa kelmad ka mid ah qasnadaha jannada, waana dawaynta 99 cudur oo uu u yar yahay walwalka. Intuu ku jiray doorista kelmadaas, waxaa ku soo dhacay fikrad cusub oo fudud oo uu markii hore ka tegey. Subaxnimadii xigtay, isagoo niyad sami iyo kalsooni ku jirto ayuu tilaabo qaaday. Sidii ayayna ku furmeen albaabadii xirnaa, culayskiina ku yaraaday. Xawqaladu ma aha keliya erayo la yidhaahdo, waa furaha isbeddelka, ka bixitaanka dhibaatada iyo awoodda daciifnimadaada ku weydaarsato awoodda Ilaah. Marka ay kugu adkaato, dheh: laa xawla walaa quwwata illa billah.